marwo samsam cabdi aadan wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland ayaa kulan ballaaran la yeelatay nootayooyinka sharciga ee magaalada Hargeysa isla markaana ka hadashay liisamada gaadiidka waxaana ay sheegtay in ay bilaabeen cashuurtii liisamada gaadiidka iyadoo arrintaasi ka hadlaysana waxay tidhi ummadda Soomaaliland ugu bushaarayna in laysankii hore ilaa ay hawlaha bixda ku noolaysan sii daayeen marka saaka waxaanu u bushaarayna inaanu stikerka oo isboolisiina oo sanada oo qiimihii hore kala ah loogu dhajin doono oo meel walba ka helayaan meesha ay wadidooda ka cashuuranayaan inta laga gaadhayayna lafta u bedelanayaan ka laftu isna cilad yar buu leeyahay 3 sanadood weeyaan isagana qorshihiisa waan ku jirnaa qofkii dabada doonaya inuu gaadho ku wato isaga ka lafta u roon laakiin dadka inta badan ee dhowr iyo konton bukuna ee ka haysta waxaan doonaynaa inaan u sheegno in stikerka oo halka inta yar baa laga jarayaa oo loogu dajinayaa sanad laakiin waxay ka raysanayaan in de forgery iyo tuugaysi iyo wuxuu kolba kala cararo markay trafficadu weydiiso qaarba gaariga ka dabo ka baxsada taasay idinka hawl yar tahay waxaan jecelahay waxaan ku qabanay shirkana wasaaradda cadaaladda macnaheedu waxa weeye in cadaalad doonayno qofka cashuurtiisa inuu cadaalad ku bixiyo isagana in la tacadiin turbataariyadu way joogtaa waxaan jecelahay inuu qof walba ku tala galo laysankiisa hore haysta inuu ka stikerka ku dhigo marwo samsam cabdi aadan dhinaca kale waxa ay kulan ballaaran la yeelatay mulkiilayaasha nootayooyinka sharciga ee magaalada Hargeysa kulankaasi oo wasiirka ay ku wehelinayaan agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda ee Soomaaliland iyo maayarka caasimadda Hargeysa ayaa waxa ay wasiirku ka codsatay mulkiilayaasha nootayooyinka sharciga in howlahooda ay waafajiyaan nidaamka maaliyadda ee wadanka u yaala haystana wasaaradda cadaaladdu way joogtaay budgetkooda waxay ku soo darsadeen annagu hor baan hadaan ku soo darsanayna ku dhiirigelinay inay idin yeelaan tababaradii iyo dhibaatadii hoos u eegaan waan u diyaar baan annagu marka maanta inta ugu badan ee ku wada hadlayeen waa inta runtii cashuuraha baaqanaya sidii doonaan haw baaqdaan ama khaladaadka ku dhacaya ama dhaqanka mujtamaceena wax xumaynaya marka laga yimaado lacag inaynaan eegin marka inaynan hadhow isku dhicin aynu runtii inoo dariiq wada jeegna aynu dariiqa wada qabsan insha Allah ilaahay wuu noo hawl yareynaya waxa niyad sami lagu wada qabto dhibaato idinka iman mayso maayarka caasimadda Hargeysa iyo agaasimaha guud ee cadaaladda ayaa iyaguna kulankaasi hadallo soo dhaweyn ah ka jeediyay iyo dardaaran iskugu jira dhinaca kalena mulkiilayaasha xafiisyada nootayooyinka sharciga ee magaalada Hargeysa ayaa soo dhaweeyay kulankaasi wasiirka wasaaradda maaliyaddu ay la yeelatay ee ku saabsanaa gundigiijiska dhaqaale ee wadanka